halkan waa beerta tijaabada ee wasaaradda beeraha ee dawladda Soomaaliya oo ku taala degmada Afgooye gobolka Shabeellada Hoose waxaa lagu beeraa dalagyada kala duwan ee ka baxa dalka waxaana maanta kormeer ku tagay wafdi uu hogaaminayo wasiirka beeraha ee dawladda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda beeraha dalka Masar iyo qunsulka guud ee safaaradda Masaarida ee Soomaaliya u fadhiya ujeedada kormeerkan ay wafdiga ay ku tageen xarunta ugu weyn dalka ee tijaabada dalagyada ayaa waxa ay tahay dadaalada wax soo saarka dalka ka socda iyo beero wadaag casri ah ay wada yeesheen dawladaha Soomaaliya iyo Masar kuwaas oo lagu beeri doono dalagyo kala duwan qunsulka guud ee safaaradda Masaarida ee Soomaaliya u fadhiya Tamar Safwat Almadi ayaa sheegay in dawladaha Soomaaliya iyo Masar ay ka wada shaqeyn doonaan heshiiskii horumarinta beeraha Soomaaliya iyo Masar ay gaareen waxa uu bogaadiyay dadaalada wax soo saarka ee dhinaca beeraha ee ka socda dalka كمان كل ده تم بجهود كبيرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو وبتوجيهاتهم قدرنا والتسهيلات اللي قدمها الطرفين قدرنا نتواجد هنا وإن شاء الله نقف على المكان الأنسب نقدر نقيم عليه هذه المزرعة. beertan tijaabada ah oo ay gacanta ku hayso wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dawladda Soomaaliya ayaa dhul ahaan waxa ay ku fadhisaa 400 oo hektar waxaana haatan ku beeran dalagyo ay ka mid yihiin muuska, qaraha, liinta iyo kuwa kale. wasiirka beeraha iyo waraabka ee dawladda Soomaaliya Xildhibaan Saciid Xuseen Ciid ayaa sheegay in wasaaraddu ay ka go'an tahay horumarinta beeraha iyo yareynta cunto yarada iyadoo ay dawladda Soomaaliya kaashanayso saaxiibadeeda caalamiga ah. annagoo eegayna khubaraduna ay si fiican u daraasayn doonaan waxaan aad ugu faraxsanahay in dalkeena beeraha uu diyaar u yahay maalgashiga inaan ku soo dhaweeyno cid kastoo diyaar u inay maalgashato oo ay ka howlgasho halkan iyo meelaha kale oo Soomaaliya beeruhu ku yaalaanba waxaan rajaynaynaa inay khibradda Masarna aan ka faa'iideysan doono si loo horumarin lahaa beeraha iyo wax soo saarkooda iyo in tababaro la siiyo beeraleyda Soomaaliyeed quality-ga wax soo go'ay in kor loo qaado tayada in kor loo qaado waxyaabahaas oo dhan ayaan ka kashan doonaa haddii la haydmo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa tiimka wasaaradda Cabdicasiis agaasimaha suduwaha gobolka Shabeellada Dhexe beeraha wasaaradda beeraha Shabeellada Hoose beeraha wasaaradda beeraha oo runtii isaguna halkaan gobolka shaqo fiican ka qabtay waxaan marka ku faraxsanahay inay meelo kale oo beeqan doonaan oo dhulka beeraha ka mid ah in ay horumar fiican iyo khibrad badan laga dhaxli doono. tani waxa ay salka u dhigaysaa beer wadaagyo ay si wada jir ah u wada yeeshaan dawladda Soomaaliya iyo dalka Masar si loo yareeyo faqriga iyo gaajada dalka Soomaaliyana wax soo saarkiisa kor loogu qaado ayadoo dhulal bannaan oo beeratan ay leedahay dawladda Soomaaliya lagu beeri doono dalagyo kala duwan taas oo dawladda iyo dawladda Masar ay iska kaashanayaan si wax soo saarka dalka loo sare loogu qaado. Cabdirashiid Nuur Ibraahim telefishinka qaranka Soomaaliyeed degmada Afgooye gobolka Shabeellada Hoose.